goobtani waa mid ka mid ah qolalka culumadda ee isbitaalka Children Hospital ee Minneapolis waxaana isugu yimid in ka badan 300 Soomaali ah oo danaynaysa in ay wax ka ogaadaan nidaamka ay culumadda diimaha khaasatan kuwa islaamka oo ay Soomaalidu ka mid tahay ay ku booqdaan bukaanka isbitaalada yaala iyo maxaabiista. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Darul Hijrah ee Minneapolis oo ah Soomaaliga kaliya ee qaba tababar buuxa kana shaqeeya hawshan oo inoo sharaxaya ayaa waxa uu yiri programkan waxa weeye waa barnaamij markii la joogo wadamada galbeedka la yiraahdo chaplaincy oo inta badan laga shaqeeyo isbitaalada iyo xabsiyada iyo muxuu ahaa militariga iyo booliiska iyo meelaha laga shaqeeyo weeye inta badanna waxa loo shaqeeyaa tusaalahan markaan ahna isbitaalada oo kaleeto dadka xanuunsan ama dadka dhiban ayaa la shaqeynaya waxa badanaa shaqadu qabta ay tahay wax la yiraahdo spiritual and emotional dadka muxuu ahaa diin ahaan iyo dareen ahaan dhibaatada haysata in laga caawiyo taas marka waa qayb weeye imaam Cabdiraxmaan Shariif oo kulanka maanta inoo faahfaahinayana waxa uu yiri أنا waxaan qofkii ugu horeeyay muslima muxuu ahaa xirfadda noocaas intuu barto ku shaqataga ayaan ahay gobolka Minnesota yani gobolka Minnesota waliba hadana title imaam ama markii runta la sheegay imaam kaliya ma aha qofkii ugu horeeyay muslim ah xirfadda intuu tababarkeeda qaato hadana waliba ku shaqataga ayaan ahay yani marka waxaan doonaynaa arrinta noocaas ahay inaan community-ga la wadaagno oo aan kala wadaagno siyaabo fara badan oo kala duwan midda koobaad bacdama aan wada dheer aan maray oo aad u adag inaan soo gaabin mayno laakiin dadku inay helaan wax fara badan oo la talin ah wax fara badan oo caawimaad ah inay dadku helaan waan doonaynaa oo qof hore shaqadii xirfadii wadadaadii maray hadana ku shaqeeyay wixii yaqaan diintoodii iyo dhaqankoodii iyo culture-koodii yaqaan waxa marka doonaya imaamiyada iyo dadka kale imaamiyada ahaynba inaan u tababarno muxuu ahaa aan siino tababar oo u diyaarino xirfadda iyada tababarkeeda si ku gali lahaayeen Chris Bergman waa wadad masiixi ah oo kamid ah guddiga hay'adan maamushaha culummada diimaha kala duwan ee booqda bukaanka iyo maxaabiista isaga waxa uu ka howlgalaa qaybta isbitaalka caruurta ee Minneapolis Chris waxa uu nala wadaagayaa dareenkiisa ku aadan And I'm very excited to be part of this. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado barnaamijka ku cusub magaalooyinka mataanaha ah waxa ay ka mid yihiin meelaha ugu ballaaran ee uu hadda ka socdo tababarka ay culummada ku booqanayso xabsiyada iyo isbitaalada ee dalka sidoo kale waxa halkan degan jariyada ugu badan ee Soomaalida Mareykanka waxa in badan raadinay in aan xiriir la yeelano hoggaanka diinta ee jariyadaha Oromada iyo Soomaalida si aan ugu wada shaqeyno nidaamka waxbarashada ee lagu noqonayo Jambalin. I've been working with Sharif Mohammed especially, and Sharif is the only chaplain that we know of in the entire state of Minnesota who has completed a CPE residency and become a full-standing chaplain. waxaa la shaqeynaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah qofka kaliya ee muslimka ah ee gobolkan qaatay tababarka isla markaana ku shaqeeya 7 qof oo kale ayay yihiin muslimiinta Mareykanka oo dhan oo leh shatiga ay ku shaqeeyaan. In our board certification process, only 7 Muslims in the entire country have been board certified. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa carabka ku adkeeyay in ay si gooni ah u danaynayaan haweenka in ay ku soo biiraan nidaamka Jambalinka loo yaqaano. waxaan doonayaa marka aniga oo iga go'an shaqadan inay dumarkuna qayb weyn ka noqdaan oo hadda dadka maanta aad u jeedaan marti qaadnay gabdho fara badan baa ku jiray waliba waxaan doonayaa inaan dadka u sheego qof walba oo muxuu ahaa dumaraho doonaya xirfadan inuu barto kadibna uu ku shaqo tago waxaan doonayaa inaan cadeyno taageerada aan ragga siinayno iyo supportiga ama taageerada aan siinayno ragga to ka badan baan iyada siinayna oo waxaan doonayaa aniga inaan rag badanna ay soo baxaan dumar badanna ay soo baxaan ayaan doonaynaa marka inaan dumarka laftooda riixno taageero ka badan mid ragga aan siino ayaan doonaynaa yani biidni Ilaahi taala marka waxaan doonaynaa oo ka shaqeynaynaa 2 sano 3 sano 4 sano soo socota isbedel xoog badan baan doonaynaa gobolka Minnesota gaar ahaan inuu ka yimaado markay timaado isbitaalada markay timaado xabsiyada markay timaado muxuu booliiska iyo hawlahaas oo dhan oo dad muslimiin ah oo qualify oo xirfadan loo tababaray oo aqoonteedii qaatay oo tababarkeedii soo sameeyay oo shaqooyinkii qaban kara inaan soo saaran doonaynaa yani marka waa sida barnaamijku sidii qurbaha loo yimid waxa habnooleedka Soomaalida ku soo kordhay aqbalka xirfado shaqo oo ay bulshada inteeda kale ay ka faanin jirtay
iyo barashada jabalinka oo sida aad wada arkaysaan Soomaalida Mareykanka ku cusub. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota.